kulankan oo lagu qabtay xarunta gogosha beel kamida beelaha banaadiriga ayaa lagu bilaabay aqrinta quraanka kariimka kaasi oo la sheegay in looga gol leeyahay culeysyada haysta dadkan inuu alla kaga dulqaado waxana kulankaasi ka qayb galay waxgarad culumaaddin aqoonyahan iyo dhalinyarada beeshaasi waxgaradka culumada iyo aqoonyahanka madasha ku sugnaa ayaa waxay cabasho ka muujiyeen kursiga golaha shacabka ee tirsigiisu yahay hoob 34 oo la doonayo in loo weeciyo beel kale ayna ka soo horjeedaan arintaasi waxa ayna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka ka codsadeen inay arintaasi wax ka qabtaan waa kuwan qaar kamida culumada odayaasha iyo aqoonyahankii goobta ku sugnaa oo arintaasi ka hadlaya waxaan tabareena ama ka cabanaynaa faragelin lagu sameeyay darteeda ileen macna qofkan maaragtay hadlin ama aan wax sheeganin sida caamka uu yahay Soomaaliya waxa la aqoonsaday in qofkii aamusa inuu raali ka yahay wixii lagu sameeyay anagana raali kama nihin waxana lagu sameeynayo waxna lagu sameyn doono intaba mana u dul qaadanayno haddaan nahay beesha culumada reer Faqay ayaamahan waxa socday gacan kurimis wax la yiraahdo dad yar ayaa soo baxeen oo la adeegsanayo arinta Faqay abaxaaji ee magaciisa reer Faqay ma arin maartay gorgor galayso waa arin muqaddas ah arintan arin gorgor galayso ma aha arinta reer Faqay cid kale ama qabaa'il kale noogu soo magaciisa noogu soo lagalahay ma aha waa arin muqaddas ah oo anaga kaligeena ah yeelimayno wallahi yeelimayno in la wadaago waxaan u sheegayaa madaxweynahayni aan jecelnahay ra'iisul wasaarahayni had iyo jeer ay ku dhawaaqayaan cadaalad had iyo jeer ku dhawaaqayaan xaq had iyo jeer ku dhawaaqayaan musaawad ayaan ka soogeynaa xaqina ayga ilaahay ka soogeynaa ayaan ka soogeynaa marna yeelimayno in waxna la qaybsado waa anaga ayaanu leenahay haddii ay jirto kursi la isla qaybsanayo Soomaaliya golaha shacabka 200 iyo dhowr way هذا فرو كرسي كرسي علماء واي كرسي ما أرتي لوجو هشين كرنا ضد لو هشين كرنا ما ضد كان ضد لو هشين كرنا ما هن بشير محمد عبد القادر أيا ورباهين تواقريي ورصحافدات لقصة صاري كرسي هوب 34 وعبشدي سوي تاجن تهي هذه أنا نهاي باشا علماء الرفقي كفر إذا كرسي هوب إبر 34 وحافر قلين توس نجوها شخصيات شاغنايا إن أي كتير سيهين حفيز كمدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية وزارة أرمها جذاها جمهورية فدرالك الصومالية كواسيو أي كدح سمين باشا وديال بين أورة أو جعم كرمسة إسلامر كان أسمي ورقة أقويسك أيدي وجددون أي تهاي حلست إرجو أي دونيان إن أي كوبوان كرسي باشا علماء رفقة أي ليدا هاي هوب إبر سوداني أفر haddaba guddiga doorashooyinka kuraasta banaadiriga siid waxaanu ku kalsoonahay in aysan marnaba ku xadgudbi doonin dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo habraaca doorashada dadban kuraasta golaha shacabka ee 2016 oo saldhig u ah hanaanka doorasho ee heshiisyada madasha wadatashiga qaran ee 17 Sebtembar 2020 17 May 2021 iyo 22 Agosto 2021 isla markaana damiirkooda waa guddiga doorashooyinka banaadiriga damiirkooda uusan siin doonin in kursi ay leedahay beesha culumada reer Faqay loo xoogo beel kale waxaan kaloo si adag ugu digaynaa in guddiga aysan diiwaan gelinin nabadoon been abuur ah iyo ergo aysan soo xulin nabadoonada saxda ah ee beesha culumada reer Faqay sidoo kale aysan guddoonsiinin shahaado musharaxnimada qof aan u dhalalin beesha kana haysan caddayn guddiga nabadoonada soo jireenka ee asalka ah ee laga yaqaano beelaha banaadiriga waxay beesha culumada reer Faqay aad uga walacsan tahay arrimaha soo ifbaxaya ee ku aadan furista kursiga beesha ayadoo ujeedadu ay tahay in la dul saaro beel kale oo aan isku xuquuq iyo deegaanba ahayn ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble beesha culumada reer Faqay waxay ka codsanayaan in aad soo fargeliso arrimaha aan soo xusnay adigoo fulinaya ballanqaadkaagii ahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo daahfuran maxamed cali weheliye Universal TV magaalada Muqdisho